waxagaa bilowgii damalaxagarre roob fiican ayaa helay. duurkii iyo dareemadu jeexyada magaalada ayay laba legdoonayaan oo lady xagaaga ayay la ciyaarayaan. baraaguhu waa tif kuwa aadka loo isticmaalay, salaan ama laba salaan ayaa laga cabay. xoolo badan degsiimadu ma haysato, reerka u badan xayn baa uga soo doogtay abaartii baxday. waa magaalo aan weyneyn oo gogan 10 jirsatay. habnololeedkii miyiga iyo kii magaalada ayaa ku kulma tuuladan. dad ayaa usoo xagaabaxa reer magaal ah, isla sidaas oo kale reer baadiye abaaruhu soo mooro duugeen oo caydhoobay ayaa iyana daan kale ka degan oo tirada labada qolo haddii aysan reer miyigu badnayn way is-ceshanayaan. goorahanba socod bay ku jireen, si xorriyad leh ayay u soconayeen intii hore oo dhan, balse hadda magaalada ayay ku soo dhawaadeen. midooda fodada hagoogan mooye ta kale oo xijaab xidhan ayay dhankeeda isha raggu u badan tahay. xijaabka ayay dabayshu soo caabinaysaa oo laabta kaga dhegaya, iyana gacanta midig ayay iskaga fujinaysaa. gacanta kalena jirkaan biyo ah ayay gabadha kale kula walaandaynaysaa. quruxdu waa hawl iyo dhibaato ka maqan qofka foosha xun. sababtaas awgeed ayay labada gabdhood midi dabaysha u hiifaysaa oo jidhkeeda iyo marada u kala jiidaysaa, halka midda kale aysan badaaba hayn oo yaaba eegaya. gaadhi dhayna ah ayaa xagga magaalada u soo socda. indhaha ayay la raacayaan xawliga gaadhigu ku socdo iyo boodhka daba maqiiqan. marna fogya bigaaraha ragga saaran ayay si fadu leh midibo gaarkeed uga baadhaysaa hebello ay garanayso. waase rag garhka iyo gafuurkaba cimaamad ku duuban oo boodhka ka dhuumanaya. socod iyo sheeko dheer oo ay wadada ku soo gooyeen. markii ay sakadihii soke ee magaalada marayeen waxaa muuqatay in gaadhigii dhaynaha ahaa uu hablaha midood aqalkooda taagan yahay. durba weydiin faduul leh ayay tii kale ku horeysay, na gaadhigii sawkaa aqalkiina hortaagan yaa idiin yimid talo. isla su-aashii ayay jawaab uga dhigtay iyana oo tiri naamooyiye yaa noo yimid talo. maanka ayay ka baadhay qofka yimid, walaalkeed ayayna u badisay. markii ay guriga ku soo dhawaadeen, filashadii qof yimid waxaa meesha ka saaray yabaqa guriga haystaa iyo dhiilada dhagaha qamar soo gaadhaya. cashakaas oo saaxiibteed u dardaar warinaysa ayaa ishayn weyday oo bilada soo yaamaysa sidii ay keligeed aragtay uga sii hordhacday oo tidhi naawaley waxbaa dhacay. jirkaankii miyaa fududaaday mise naxdinta ayaa tabartu ku lamaan tahay? mid ay tahayba waxa ay la ordeen jirkaankii oo hal keer meel ah si xoog ah salka dhulka ugu dhufteen. neef aad hindhisa moodid jirkaankii ka yeedhay. weydiimo iscirbinaya ayaa sida dawanka ambalaasta ammaanka qadan uga soo hoobanaya. haddii ay aamino raygal oo koonaha magaalada deganayd haatanna albaabada aqalkooda tiir ka mid ah ku tiirsan ugana soo sokaysay dadka weydiisay maxaa dhacay, jawaab kale ma aysan helin aan ka ahayn walaalkaa quulle ayaa dhintay. dareenkeeda ayuu qof waliba dhowrayaa, isbeddelka wejigeedana waa loo jeedaa. wada dhalashada sida aan loo dooran karin ayaan qofna qof kale ula wadaagi karin murugada uu dareemo qof walaalkii waayay. sababtaas ayaa qadan iyo qamar loo wada dhowraya. qamar oo curadda reerka ahayd waa la guursaday, iyada iyo labada caruurana warka dhiilada leh ayaa guriga keenay. ee koonaha kale ee tuulada ayay yaalaan. duqdu iyadu qolka ayay jiiftaa, iyada oo bukaan ah ayay warkan maqashay. murugadii ayaa uurkeeda burburtay oo baroor ayay tahli weyday. aamuska ayayna ciirsatay. kaahin caruurtiisa oo 2 ah ayna timira u dhashay ayuu dhex fadhiyaa. badda ma hayaan iyagu oo geeridu nimaadan garanayn iyo geljaray ku wacan tahay ayaa dubaaqooda ka yeedhaysa. lakafaarka ugu weyn waxaa leh sababta uu ku baxay quulle. wuu isdilay ayaa ka daadegi weyday reer damalaxagarre. sidee qof dhan oo nolosha intaas oo saymood ka soo badbaaday wadka laabta ugu sii dayn kara ayaa murugo labaad noqotay. waa tuulo qofku geerida cagihiisa kaga cararayo,
jiha kasta sabab uu qofku u qurbaxo ayaa ku gadaaman abaaro, colaado, gaajo iyo xanuun safmar ah oo qof hadday ku dhacaan gelinka hore ka dambe magaalada saleeya ayay dadku ka baqaan. intaas oo sababood ayuu wadku u soo maraa deegaankan, balse magaalooyinka waaweyn ee fursadaha dhimashadu ku yar yihiin shilalka gawaadhida marka laga reebo ayay la yaabeen sida uu qofka ku nool ee reer magaalka ahi uu isagu wadka isugu loogi karo. jawaabta weydiimahaas kan waxa ay heshay qadan markii ay furtay warqadii uu dareewalku u dhiibay ee la sheegay in qolka Quule isku dilay laga dhex helay. waa waraaq bushqad cad ku jirta oo yara jactadsan ayna ka muuqato in hore loo akhriyay maadaama bushqadu barfuran tahay. maalin kadib xaaladii oo degtay iyadoo keligeeda ah ayay harqoodaalka guriga ku furtay bushqadii warqadii oo akhriskeeda bilowday. ugu horeyn waxa ay isha ku dhufatay ciwaanka ugu horeeya oo ah afeef. intaas kadib toos ayay u bilowday akhriskii warqadda. muhiim maaha inaan qurxiyo erayada aan odhan doono, waayo qof kasta oo istila dareenka dadku ay ku akhriyaan dhambaalka uu reebo iyo tixgelinta ay siiyaan ma aha mid qofka ka turjumaysa, balse waa xushmad ay geerida u hayaan. waayo waxaan qori doono waa hadallo caadi ah oo aan maalin kasta odhan jiray, dadka aan ku dhihi jirayna ka loogu qaatay jilicsanaan iyo bidayay. qof walba oo waraaqdan furi doona waxaan u rajaynayaa nolol sareeda leh in uu ku noolaado. midaas haddii uu seego waxaan kula talinayaa geeri macno leh in uu dhinto. dhambaalkaygani waa sagootin aan ku soo khatimay naf wax badan saymaha adduunka lugaheeda kaga baxsatay, naf dhalashadeedu shil ifka ka dhacay ay ahayd, imaanshiyaheeduna uusan waxba ka duwanayn iniin uu habeen daad kasoo hoos qaaday geedkii ay kasoo dhacday. dabadeedna daad xoortu kula xaarday degal kale oo aan geed la jaad ahi hore uga bixin, halkiina si qaab daran uga soo baxday. qof ka abuurnaa naf cadow ku ah oo ay tahay in uu ka badbaado, isla jeerkaasna ay tahay in uu badbaadiyo si uu u sii jiro, balse ku fashalmay istiidooyinka dhexdiisa yaalla. qof ay ku sababeen in ay nolosha oo dhami hal midab u yeelato, si wal oo lagu qanciyo quruxda dunida looguna sifeeyo midabada cudoon ee jeegaantana qof isagu ka fakera midabka uu yeesho wax kasta oo jiritaankiisu gabagaboobo, kaasoo ah midabka dambaska. akhriste falka aad igu dhaliilayso ee qariibsanayso waa isla falka qiimaha u yeela dhambaalkan ee aad igu ixtiraamayso oo ah inaan isdilay. sababta aan isu dilayna halkan aan kuugu sheegi doono. waa go-aan adag oo aan in badan ka labalabeeyey, balse ugu dambeyn aan fuliyey si aan u bayaxo maangalnimada isdilkayga iyo saxnimada jawaabaha ka bixiyey layliga noloshu ii dirtay. ayaan ku leeyahay marar badan dhibaatooyinka nololeed waa kuwo aadamaha dheef u ah. ma ogi in ay aniga dheef ii ahayd iyo in kale, balse mar walba oo ay jirto dhib aan xal ula ahay waxa aan ka baaqsan jiray wad aan anigu sababtiisa qorsheeyey. marar badan ayay igu soo dhacday in aan nafta isdhaafiyo, balse haddana waqtiga oo igu yaraa awgii ayaanan u dhiman jirin. mar ayaa dhacday aniga oo diyaar ah in aan gaajo dareemay, adiga oo hamuun qaba hadhimane wax cun oo hadhow isdil ayaan isri. dabadeed markii aan dhergay dhibaato kale oo xal iiga baahan ayaa ii muuqatay. sidii ayaan maalmo, bilo iyo sanadaba ku noolaa, iyadoo haddana fikradii isdilku niyadayda ilbiriqsi walba ku jirtay. dabcan tani waxa ay meel dhow iga tusiyey macnaha nolosha, aan dhaho macnaha noloshayda, sababta oo ah qof waliba isaga ayaa qeexidaas xaq u leh. aniguna waxa aan ku qeexay noloshayduba in ay ahayd dhibaatooyin aan dhammaad lahayn, si taas la mid ahna u baahan furdaamin aan daal lahayn. noloshu waa sida
badweyn qofku bartankeeda dabaalanaya mar walba oo uu hir fuulana hir kale meel fog uga muuqanayo ilaa uu isdhiibayo ama ay mawjadaha ishirdiyaya salka dhigayaan. Taasina waa waxa ugu yar ee qofi samayn karo, maadaama aynu ka hadlayno in qofi noolaado oo keliya, balse in uu ujeedo u noolaado waa hawl aad u culus. In uu ujeedo aan naftiisa ahayn u noolaadana waa hawl xajmiga culayskeedu dunida u dhigmo. Waqay 2 dagaal ayaan ku jiray, duruufaha noloshayda iyo mawaaqiftayda oo dhamina ay ka duulayeen. Waa waxa aan naftayda la rabay oo u halgamayay, iyo waxa aan dadka u hambeeyey oo aan cid kale u sameeyey darteed. Ama aan dhaho 2 marxaladood ayaan maray. Mar aan naftayda u noolaa oo maal, magac iyo maadiyaadka kale ee la-ayniga ah aan haanka ku hayay una noolaa, walow aan ku hungoobay waxyaabahani in ay buuxiyaan fagaaga ii muuqday ee naftayda. Haddana mar kale ayaa jirtay oo aan dadka kale dartood u noolaa, aanna tixgelin u hayay jacaylka, naxariista, xushmadooda. Aan dhahno 2daa jidka anaaniyadda iyo midka nafhurka. Labadooduba waa isdiidooyinka dhalanka ah ee qof walba ku mataansan. Ujeedada uu qofku u nool yahayna labadaas ayaa jaangooya: in uu isu noolaado oo damaciisa hayin u noqdo, iyo in uu qof kale u sadqeeyo naftiisa, farxadiisa ama noloshiisaba. Qof kale oo kala siman intaasba. Midaasi waxa ay bedeli kartaa qeexidda nolosha ee ah loolanka aan dhammaadka lahayn. Isla jeerkaas ayay waxay daadafaynaysaa in nolosha lagu koobo heerka qofeed, iyada oo geeynaysa heer ka sarreeya oo ah isku tiirsanaan iyo in qof kale dartiis u noolaado. Si taas ka duwan, anaaniyadu waa doonis ku abuuran qof waliba gudihiisa, oo damac ka shidaal qaata dareemada masayrka iyo xaasidnimada ee qofka korriinkiisa la hana qaada. Tan ayaa sabab u ah loolanka iyo ujeedaynta nolol bilaa ujeedo ah. Waa isla halka laga eebiyey qaacidadan macnaha daran ee ah dhalo, hadaf dhigo, ka dhabee, ku dhac, dabadeedna dhimo. Falsafadaha dunida oo dhami taladan ayay ku koobeen meertada nololeed ee shakhsiga ah. Aniguse uma noolaan qaabkan, sababtoo ah si wal oo aan noloshayda gudaha u bilo wax isbedel ah kuma soo kordhinayso nolosha dibadda. Dadaal kasta oo aan ku bixiyo midaasna macno la'aan iyo baylaha nafsadeed baa ii muuqata. Xataa haddii aan isdiidsiiyo midaas, waa mid aanan sinaba waxba uga qaban karin. Noloshu waa ay iga hor bilaabatay, dabadayna waa ay sii jiri doontaa. Saas oo ay tahay, waxa kaliya aan taransan karaa haddiiba aan sii noolaado waa in magacayga dad sii hadalhayaan, iyaga oo igu xasuusanaya wax aan anaaniyad darteed u sameeyey, sida inaan hanti badnaa, ama isla xasuusta dadka inaan maal gashaday oo keliya ay igu xasuusanayaan sadaqayntaydii iyo waxtarkaygii. Labadaasiba waxay caddaynayaan inaan ahaa qof jiray oo dunida soo maray, balse gooraaleeba wax nuxur ah oo weyn kuma jiro marka loo eego daleesha weyn ee ii muuqatay ee ah macno la'aanta nolosha. Aadannimada iskama saaray oo malihi waxaan la ahay dareemadaas oo dhan, haddana si uun weligay doonistayda ugama tanaasulin cid kale. Waaba haddii ay jirto dan aan u noolaa si taas ka duwan weligay macnaha noloshu ii samaynayo kuma ladhin doonistaas, sababtoo ah fal wal oo aan sameeyo waa mid aan ku qasbanahay samayntiisa. Dabcan taasina doonis ma aha ee waa sandulle. Sidoo qofku ugu sandullaysan yahay inuu naftiisa ka badbaadiyo wax kasta oo dili kara, ayuu ugu qasban yihiin doonis dani ku baday ah. Marka kaliya ee qofi si iskii ah wax u dooran karaa waa marka uu goosto go'aan weyn, sida in uu nolosha ka xiro. Taasi waa aragtida aan nolosha ka haystay. Qadan wax badan kama aysan fahmin hadalka walaalkeed. Way ka fakaraysaa, maankeedu waxa uu isku laba garqaadaya fariinta ay akhriyayso iyo heesta duulka kusoo gaadhaysa
dabayshu soo qaadayso. haddaad nolosha qawadaan nabadgala ee haajira. duco iyo waxsana ayay u rajaysay walaalkeed. dabadeedna dabkii shaaha oo baxaya holaciisii leefsiisay warqadii. midabkii khadku wuu sii tirmayaa, xaashadii caddaydna way sii madoobaanaysaa ilaa ay ugu dambayn dambas noqotay. dabaysha xagaaga ee dhabbanaysana ay kala raacday. haddaad nolosha qawadaan nabadgala ee haajira.